وحقيقة صدقي سنة أو صدف وحبضن يا نجاح اللعبي وحنجاح اللعبي بل يردي هل كان نوغتي مديرك أها إبان دركتمد هذا القوضة وحا كجري سياسيين تدريين بل يردي أها سياسيين تدريين صدقي سنة وحبتي سياسيين حناقصن سياسيين حناقصنين دقن كي هلايين وحي حلاليين بنتي وحي حلاليين إن الله شقيسن وحبضن أو دين الإسلام كدينيس يا حلاليين وسياسيين حناقصن سياسيين فرحصن واجران سياسيين حناقصن وحي كشقيان وهم مستقبلك صوماليا دنك ملها وها أدران دنتو الشخصية هي أدران وحي كهلان نيجاتيف وحهم أي كهلان وحدك قلب الجبين أي كهلان وحي كهلان دلك وابر مصون قناي وحي كهلان باش عالم كهنوتي ما دو هنا دحد حادث وحي كهلان وانا لا يعتكاري إذا ماذا نتبر مراها هذا الكاسي وهذا العلاعل هذا الكيدقن كصومالي أها لقوا يقاني معها صومالي وحلقوا يقاني نديرهن أما قبر ديرهن أو جيسيا أو مرنا عانقوسا سياسي حناقصن وحو قارسية دادك قلب جبك يعني جبك وكريده وحو قارسية دادك إني إستيفان قفك بين آدم كأهنا مركا رجالة كقاتل وادي شيء لمشهد دانتا قف نور أو إنتي معناه هوية قف رجالي كدمتين مركي مدحدي dadkii la fiirsanayay ay ka hadlayaan waa jabnay waa burburnay waana laga adkaaday hana loo yimaado macnaheedu shacabkii waxay leeyihiin marka war dadkii aan dirsanay ama madaxdeennii ama siyaasiyiinteennii yaaba qalbi jabeeba si aanay niyadii ugu dhisnaanaysaa siyaasiga xanaaqsan shacabka hanaga qalbi jabinina siyaasiga xanaaqsanoo rajada ummadda ha ka qaadinina Soomaali waa la yaqaanaa waa dad adag oo resilient ah oo adag waa la yaqaanaa dhibkana soo maray adduunka cid soo marayna ma jiro waa kaasa waa qurxoonahay waa soo taaganahay maxaa yeelay dad ahaan yaa saas ilaahay noo sameeyay maadada la rabo in la baro dhalinyarada waxaa ka mid ah critical thinking qofku inuu taxliiliyo oo uu kala sheego uu analyze gareeyo waxa runta iyo waxa beenta ah waxa weeye logic way waana waxyaabaha iskooladu aadaan macallimiinta waxaan leeyahay maadooyinka lagu daro waxa la yiraahdo critical thinking in la kobciyo logica ay ardaydu isweydiiyaan oo aan la qashimaynin oo aan loo sheegin siyaasigaas xanaaqsan uusan qashimaynin uusan wax beena ku gurin uu qofku isweydiiyo waxa ninkan uu sheegay maxaa ka keenay ma xil buu waayay ma xoolo waayay maxaa ku dhacay qofku waa inuu isweydiiyo meeshaas way meesha critical thinking ka loo baahan yahay inaan ardadeena mustaqbalka barno qofka xanaaqsan oo leh reer hebel ka hadlaya in la weydiiyo war muxuu reer hebel uu isticmaalaya reer hebel 30 sano yaa ku soo burbureenoo adduunka uga harnay xagee noo wadaa siyaasiga xanaaqsan wuxuu noo wadaa god la sii qodo yuu noo wadaa waxaan idiin sheegaynaa marka logiga wanaagsan oo aan rabno inaan dhalinyarada barno waxay tahay su'aasha in la isweydiiyo مثلا markaan ka soo qaadno xaaladda hadda maanta ay jirta iyo xaaladii aan soo dhaafnay iyo xaaladaan u soconno xaaladii aan soo dhaafnay waxaan ognahay waxay ahayd mid qurxoon iyo mid aad u foolxun oo taariikhdeena meel mugdi ah ka gashay dad yahow Soomaaliyeed asugin deeqaale dalkaaga kugu filaane duuyada badiya bariga ila kugu deeqayo dalka beeraha
dadnimadaadii u noqo